malaynaya markana waxaan u yeeri doonaa Cabdalla Maxamed Jaamac oo ku hadli doona afka barnaamijka caawa iyo kelmadda uu ka oranay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madashu sidoo ballaarantaa qof kasta meeqaamka iyo masabka bulshada ka jiraan ku salaamaya. Kulay mahadnaq guud baan u kacay barnaamijka caawa aynu joognaa waa su'aanta nolosha iyo jacaylka. Waxaan martuunahay Cabdirasaaq Mawlid Aadan oo abwaanku laba tixood uu sameeyay nagala wadaagi doono caawa madasha. waxaan u mahadnaqayaa aniga Cabdalla tiimkii aan ku jiray ee barnaamijka ka soo shaqeeyay. waxaan u mahadnaqayaa bahda hidadhowr, bahda fanka, bahda warbaahinta. waxaan kaloo u mahadnaqayaa cid kasta oo barnaamijka gacan ka geysatay. runtii waxaan la ilaawi karin ma aha howlka waxaa quruxda u sameynaya kamaradahan uu keenay iyo qoladan fanka. howlka waxaa quruxda u sameynaya waxa weeye waa idinka sad codsigaygu soo ajiibteen ad waqtigiina qaaliga noogu soo hurteen. madashu waa yaro kula sheetaana waad ka raaleehanaysaan. aad idinka mahad celinayaa. abwaanka igu xigaya tix uu ila wadaagay horaantii bishan 9aad ayaa waxaan u gartay inay wadiga nolosheena ku saabsan tahay. abwaanku wuxuu igu yiri maasadan waan bedelayaa, maasa jacaylaan u bedelayaa. waxaan ku yiri barnaamijka kuma shaqeynayo. marka waxaan dareemay maasadu inay dhalinyarteen caawa ay soo hor fadhidaan ay wax badan ka bedelayso. waxaa sharaf ii ah shaqada barnaamijka caawa anu aan meel ku suntayaa. waxaan barnaamijka kala carinay howlal waaweyn aan ku qabanno. barnaamijka waxaan kala carinay inuu maron ka duwanaado barnaamij bandhig suugaaneedii ugu dambeeyay la qabanayay isbuuciyadii ugu dambeysay caasimadda ka dhacay. barnaamijka waxaanu keenay hoygii fanka iyo hidadhowra. saa darteed baa loo odhan karaa suugaanta iyo dhaqankuna xidhiidh aada u dheer bay leeyihin. mar iyo 2 iyo 3 waa idin soo dhaweynayaa. qolada bartikoolka aad u mahadsan yihiin. anigu mahadnaqo baan u kacay. walaalaa igu xigi doonaa oo tixda aroorijan noo mari doona. waxaan u mahad celinayaa agaasimaha guud agaasimaha waaxda ganacsiga ee wasaaradda ganacsiga isaguna madasha nagula sugan ahna jilaa weyn oo wiigagii ugu dambeysay musalsalada aad ka arkayseen ruux Cabdillaahi Cabdi u fadhiya isaguna wuu ku soo dhaweynayaa. marka abwaanka igu xigi doona bahdii danan culture-na iyaguna aad u mahadsan way nala joogaan. mar iyo 2 iyo 3 madashu waa madasheenii soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله. أبي محسن هاي عبد الله يوم هذا أفكار برنامجك أبوان عبد الرزاق حكماوي وعاوة هذا مرتين قلتين تغيرتينا آتكو قرحنا بدنله آتكو مهتم سيد الوسو أجيبتين بلانتي يدوروا فشرين أو ضيق حنايا هذانا الآلي يدوسو بحسين أو أبوان كأجيبتين بلانتي آلي يدنا ديكو فرحسنا نغنا الحكماوي بنوية رياي مانسادة أروريجان أو عاوي هذا ديكو لو نقدون سولو أبوان. kolley maasadan aan wado waxaa aroorijan waxay ka waramaysaa uun ka waaqic ahaan nolosha aynu ku sugannahay. waxyaalo badan waxaa jira waa seerkal bayn ku noolnahay. seerkalka nolosha ka jirta
caqabado badan baa haysta caqabadaha badan markan in badan soo la fuguray waxaan is-idhiba malaha qaar badan oo ka mida inaga abuurnay waxaa ka mid a qabyaaladda abaaraha saboolnimadii iyo maamul darradan ina haysataa iminka u fiirso qof kastaa waxa maskaxdiis ku dhacsan iyo abaaraha malaha ilaahay baa keena iminka halkan doox waa maraagteenna dooxaasi waad garanaysaan oo badduu ku dara biyaha uu badda ku daro ma qabsano kama faa'iidaysano marka waqtiga abaarahay gaadho waxaynu ka cabanaa biyo la-aan waxaad maqlaysaa reer iyo qolo hiblaayo oo tuulo halkaasa taallaba waxaa ku dhacday abaaraha waxaa ka mid a deegaankii oo xaalufay biyo la-aan dhacday waxaa beri dhaweyn jirtay in booyada la gaadhsiiyaba qaarkood inta hargeysa laga diro waktiga roobabkana da waa garanaysaano waxaa biyeena dhaafaa meelkana ma tagaane baddaasunbay galaan marka waxaan isiri niga malaha hadaad biyaha qabsan lahaydeen oo biyaha istaajin lahaydeen malaha waxbaaba idin kordhi lahaayo biyahan dibbaba loo soo saari lahaayo dib baynu cabi lahayda qabyaaladuna dee waad ogtii dhibaatadeeda oo inaga abuurna kadib inagii abuurnay waa geed qabyaaladu way baxdaa midhay dhashaa midhaha ay dhasho intaa uu geedkaasi baxayo inagaa abuurna inagaa biyo ku shubna inagaa ilaalina inagaa xeerna hadhow markuu baxo midhaha geedkaa ka soo baxa dib baynu cunnaa markaynu dib u cunnana dawa inagaasu waynu wada xanuunsanaynaayo wakaasoo waxba kama fayni waxaan ka yara cararayaa inaan maasada idiin wada fasiro oo waxaan jeclahay inaan sideyda idinku dhiibo oo bal idinku wixii garashadiina qof kastaaba intuu maankiisa weeleeyo uu kala soo dhex baxo magaca arooritaan baan bal in yar dul istaagdo maadaamaad moodo inuu yaro ka yahay hortii waa laba ereyoo isku tegay waa aroori iyo jaan arooriga dee malaha waynu wada garanaynaayo waa tii iskuulka aynu kusoo dhiganay gorayadu dhasheeda aroori bay dhigtaayoo awoodi kulaaya arooriguna waa meel banaan oo dee badiya maskaxiyan markan u fikira waxaan isira malaha gorayada ma dhaano waxa dhaa markay gorayadu colaad aragto oo ay duulaan kusoo duulay aragto intay carartaabay god afka gelisaa marka isma tiraahdo bilaa halka sare lagaa dila bilaa jirkan kale lagaa toogta inaguna kuwaasun baynu la mid nahay oo dee xabadhaan marka jaankuna badiya soomaalidu waxay odhan jirtay war waxaas waa wax jaan nagada waxa badiyaa la saari waaye cilaankiisa ee la garan waayo ayaa la odhan jiray waa jaan marka waxaan sini dhibaatadan haddana aynu garan laanahay ee haddana sanad kasta way kusoo noqonaysa ee ka soomaaliha badiyaa dee waxaa la idhahdaa soomaalida dhibaata haysta dhibaata waynu tilmaanaa dhibaatada barnaamijyo fara badan bayn ka sameynaa waynu kaga hadalna way ka dareena haddana waxaa arkaa iyadoo tan iyo dee maalinta dab ka baydha ee qodobadan aan xusay waa laga sheekeyn jiray barnaamijyo laga qaban jiray waa la weeleyn jiray maafish waxba iska bedelaan marka ana waxaa is idhi bal niyo waxaanaan waxba iska bedelayn bal adiguna dhankaa ka gal oo maasadu waxyaalahaas iyo waxyaala fara badan oo kale ayay daaran tahay aan bilaabo waxay ku bilaabmaysaa eefadaadka iyo idhada kulmo adduunyadii dhammaan ololbaha ku shidan waa nolol ileen udubkeeda dhaco xaqa loo alkumay aada loo dabdhigay waa abadaqe agaheeda iyo asalkeeda guud waa arooritaan ilinkaada martaba waa la ootay oo albaabkeeda guud waxa yaal ibliis waa duul ileen idho lagu falo waa duul ileen utu laga fulo way awaadhayin waa indhoolayaa midka ay xushaan abuguri noqdo ayahoodu cuno ama amintii kastaba ubulbaa jiro duulkaa arkaa isma dooriya waxba iskala kay bedelaan ruuxba ruuxi leh uma diir naxee basharkaa alkuman waa abeesan nool ergadeeda iyo abeekeeda guud ubatada ka siman afariir ku tegay waa ilhaamintay urur bay ku tahay show adeegsigoo isma dhaanto nolol isma dhiiriyaan isma gacan qabtaan waana isku makaan isku toogta hoos arxankooda iyo dareenkoodu il intuu qabatay muu indhabeel isbaray fikir baa asteyn iyo falid ku wacan
marka lays amree amiirkoodii mee isweydii bal oo aguutankani asalkii xagguu ibta kula jiraa anshax buu nafluhu isku dhaafay oo intifaac heliye ummad yahay maxaa idin dhigay qurfaha nacu waa inkaan aafada dhalee ergadiinna iyo idinkuwa maxaad isku leynaysaan ilma keekintiyo islaba bogleyn waa amuurihiin iyo amaradiin ogobay dadow sirtu waa isbida inaad wada kacdaan ood wada jirtaan xilliyada adage taa kula isfara maydaan is odhan mar hadduu agnaan ina yidhi hayaay waa aana ee xabsi adag ku rida imanka waxaad arkaysaa nin agnaanku badi waxay u naqaanaa qofka jaahilkaas baa badiya shucuurteenna kiciyo wuu dhahoodaa inaguna waar naga joog baan dhahnee waar waa reer hebelo waa kii dagaariya lahaa markaad hebel duqaysuu reer hebel damqanaya imanka nin haddaad la hadasho tira oo xumaan baa wada jooji reerkoodii waa kacayo wataa dee afka lagu dhuftay marka waxa iska abuuranba qolooyinkan wax balaayada abaaburayn inagu tabar siinaba oo aynu inagu xagga daba ka wado waayo dee ninaan cid hayno aanay cidi garab soco aan cidi taageerino cidi u saxab tubayno imanka qofka facebooka ama baraha bulshada in la isticmaalo agab xun ama wax xun kusoo bandhiga dee ma waayo 100 qof oo idhaahda hore u soco waa eelku ku jirana waa bartaas weeyaan iyo dhibaatada arligiyo dhulkii farayow ahay irbaday gasheen ee reebtay baas albaxriba ku jeer iyagoon ogeyn ku ishaaratoo eedamada ku tidhi dhex mushaaxa ey haareed irmaan iyagoo gudliyey waa ayaan daree uga waa hadhow abwanada gabyow aradkaan ogeyn wada aasmayo waxa yimi irduuf la afuuf dhowaa ogkod iyo hilaac dhaylo weyn unkoo isa seegna yibi sirta aasanay kuu oona ee ujeedkaaga soox gurnimada awood abuur sheegataay uu baad hadeer udba dhigatay ee abuurtaada qeex aloolkii cirkiyo dhigti aasantoo aqladii dhisnaa waxa galay aboor aloolkii cirkiyo dhigti aasantoo aqladii dhisnaa waxaa galay aboor wixii noo aslaa muuji ee laqaad oo alaabadii ardaagii mataal ilwaadkaan lahayn ilayskii ma jiro oo arbeebigii amuumaa la tegay insaankii khalqiga abda laga kaxee iridaha xumaan lagu ood xabaal abtirsiimada astaanoo ahee nin qabiil ursaday aafe nagu galaal figta aan arkay ay kaartu taal awrka sii fantay dhib ilaawayow axbaa kaa qarsoon umanaha soomaal daree soo unkow ambatay kumee ufa roob sidow iga gaagaxdo ibti naga jartee afkiyaa waxsiin u bixii intuu ka abqaalay meel dib u qaadhayow alla waan ku tabi isir laga tago abkii naga libdhow eridhaba sidii kuu ololayey naxli iinta iyo dhib aroosayow ubadkaad dhashaan la ilmeeyey cid halkaa waxaa ku jirta shakeero cabjiyo naxli waa wuxuu aroosay dhig kadib aroos weyn baa dhacayoo inaguna ka qeyb baynu hayno howl baynu karaynayo naxligiibaa dhigtii u aroostay kadib markuu dhigtii aroostay 2 cisho kabacdi way aqalgaleen aqalgalkoodii iyo arooskoodii iyo waxay cunayeen iyo noloshoodii oo dhanba ka qeyb baynu hayno oo inaga xagga daba hawan kadib 9 bilood kadib bacda caruur baa dhashay oo ilmihii koowaad buu dhalay naxligii iyo dhigtiba kadib ilmihii baa waxaa lagu yidhi haddaba orado waxaanu kuu dhalay dadkan isu kaa dhisay haddaba orado ka dhex shaqayso qabyaalad buu dhalay qabyaaladii uu dhalay baa lagu yidhi orad haddaba de ku dhalanaya magaalada gal inagii bay dibi lagu soo noqotayoo waxayna tiri waarmiyow waxaa laygu yidhi dee soo shaqaysee ee idinkaan idka shaqaysanayaaye maxaa haysaa inaguna
maynaa oo dhan naga joogay way soo dhaweyno waynu ku dhaqanno shidaal bayn siino lacag bayn siino wata inalool maanta kadib markuu muddo 2 sano ah inalool noolaa ayuu fikiro qabyaalada fikirto waxay tiri marnayo heed halkaad ka timidna may fiicneen halkanaad timidna ma fiicna talo maxaa xala in badan markay fikirtay ayay markii wax kala garan weyday way tiri iska oy waayo marka dad kuwa ka carto hooyada baa ku noqotana iyagii baaba naxliyo dee dhibaataa kuwana u timidna iskama ka qabanayaan haddii iska qabanayaan ay ku hagaajinayaan ay wax hagaagsan kaa dhigayaan la garayba laakiin waa kuwanoo shidaal bay ku siiyeen way ku soo dhaweeyeenoo waxay ku yidhahdeen na dhib baa ku dhasheen marka sidaa aynu eegno dee warkaasoo innaga wax kastaba oo dhibaataa innaga unugna innaga bacaribina innaga beerna innaga abqaalla innaga xagdaba ka wadna aqbal ii hubaag istalaalayow tahanowda ee iska tiixadaya usha nagu dhacdee adimada jartaay aragnaya xanuun ahlan sii jibaar maalin kasta ul baynu dhacdo dhib baynu mudanaayo waxaan ku uhi waxba kama barano markaa naxasriba waa isaga ha iska wadato dhibaatadeeda usha hanala dhacda haya sii jibaar maalin baanu garanay tibirtii udgoon alla wada macaan beri noo ahayd eega waa qareen beri baa dee waagii lubiga joognay waxaa la yidhaahdaa dad fiicanoo wax soo saar oo wanaagsan baynu hayno sida sheekadii ku soo gaadhay laakiin marka magaalada soo galnay waa layna qasayo dad baa dhexdeeda laga shidayo waa la isu keen jeediyeyo innagii baa isku wada urnay marka tibirtii udgoon alla wada macaan beri noo ahayd eega waa qareen iniintii billaan ikhtiyaar kacday waad afduubantay aynigaa ku dhaaf aleylkii saq dhexe utumaa xiskii uubatayn jirow awrantaya maxaa urugtaadii ligay awaaraha kacay is-aroosayow iwarayso oo aashaa jalex axaddii daraad dagaalkii israaf beladow oo kaa xilimaad ilaa fikirkii aroor isinee dhumow heehaabta eel nabar inif lahee samir oo ku jeer ogaalkii bartuu ku yuqiinay erey ag wareegayow xilliyada odoros waayaha ilaa ehelmoodayow waad aawantee aamushada la jaar ibtilada dhacday ku afmeer qisada ikhtiyaar ha jabay abuuraha qasbee ogaamayow oomibaxa dhammaan oo ilaada gebi han iliiladeed rajo uu arkay asal waad fogtee aayar soo dhawow maasadu waa intaas kollay dee intiina u dheg taagaysay wax badan baa uga baxay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waa idiin mahad celinayaa sidoo kale caawa waxaan aada ugu faraxsanayo aniga idinkana igakii farxad badan waxay la jooga macalinkaygii marna kabarabaankii ugu daada weynaa somaliland marka si loo eego yuusuf daahir isagana aad baa u soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay isku soo noqonaan rajeynayaan caawa si fiican baa u wada caaweyna mahadsanti barnaamijku wuu ka duwan yahay barnaamijyadii hore abwaanada hore ay qabtaan ama bandhigyada ay dhalinyarta ee cabdirasaaq lamidka ah ay qabtaanoo dee waa la yar caajisaa marka gabayadu kaa bataan oo kale sad marba maase lagugu xigsiinaya ama tixba tix ayaynu caajisnaa marka laakiin cabdirasaaq markuu sugaantaa nolosha iyo jacaylkaba taabanaysa inoo maasada inoo akhriyay waxaan doonaynaa inaan idinku xigsiino kooxdii dhaantada ee danan culture oo inoo joogta kadibna weli fankii baynu ku guda jirnaa ismahaan xaashiyo iyadna inoogu sii xigi doontaa soo dhawaadaan idin leenahay markasta aad baa u mahadsantii Hey,
Hey, hey, hey.